kulan wacan daawadayaal kusoo dhawaada warka goobjoog TV oo idinkaga imaanaya xarunta magaalada Muqdisho. qodobada aad daawan doontaan waxaa kamid ah golaha baarlamaanka Soomaaliya oo u yeeray wasiirka dastuurka dalkaasi waxay uga weydiiyaan go'aankii uu kaga hor yimid diidmada 8 kursi oo baarlamaanka Soomaaliya kamid ahaa oo hore loo laalay. qodobada kale waxaa kamid ah kulan looga hadlayay sidii wada shaqeyn ay u dhexmari lahayd shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo sidii amaanka wax looga qaban lahaa oo ka dhacay magaalada Muqdisho. waxa sidoo kale qodobada kamid ah saraakiil Mareykan ah oo sheegay inay gacan siinayaan ciidanka xoogga dalka si ay ugu guuleysteen soo qabashada sarkaal al-shabaab ka tirsan. waxa sidoo kale daawan doontaan baarlamaanka Mareykanka oo ansixiyay sharci go'aan looga gaarayo wadamo ay kamid yihiin Ruushka iyo Iiraan oo hub ka iibsado wadamo kale. waxa sidoo kale daawan doontaan qaramada midoobay oo ciidamo ka socda lagu dilay Afrikada Dhexe. qodobada iyo kuwa kale ayaad warka goobjoog ku daawan doontaan. markale kusoo dhawaada warka goobjoog TV. saraakiil Mareykan ah ayaa waxa ay sheegeen in ay gacan ku siinayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya soo qabashada sarkaal ka tirsan al-shabaab meel u dhow magaalada Gaalkacyo. saraakiil Mareykan ah ayaa sheegay in ninkani oo ahaa madaxa logistikada al-shabaab ay dhawaan dalkaasi Soomaaliya ay ugu soo talagaleen Mareykanka inay ka caawiyaan ciidanka xoogga dalka sidii ay ugu guuleysan lahaayeen soo qabashada sarkaalkaasi al-shabaab ka tirsan. saraakiisha Mareykanka ah ayaa sheegay in ninkan uu ahaa madaxii saadka al-shabaab oo dhawaan uun ka soo laabtay dalka Mareykanka. ma cadda inuu haysto deganaanshaha dalka Mareykanka sida ay cadeeyeen laba sarkaal oo ka tirsan waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka. la taliyaal ka tirsan Mareykanka ayaa qayb ka ahaa dejinta qorshaha lagu qabtay saraakiil ka tirsan al-shabaab waxaana fuliyay howlgalka ciidamada Soomaaliya oo ninkan ka qabtay meel ku dhow magaalada Gaalkacyo. ninkan gacanta lagu soo dhigay ayaa la xaqiijiyay inuu dhawaan u safray dalka Mareykanka, laakiin saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga waxa ay xaqiijiyeen inuusan ahayn muwaadin Mareykan ah. waxaana soconaya baaritaano ku aadan noloshiisa dalka Mareykanka iyo xiriirka uu la lahaa dhinacyo kale oo daahsoon haddii ay jiraan. weerarka lagu soo qabtay ninkan oo dhacay Axadii la soo dhaafay waxa uu la xiriiraa weeraro kale oo lala beegsaday xarakada al-shabaab horraantii bishan. ciidamada Mareykanka ayaa ka caawiyay ciidanka Soomaaliya howlgallada ka dhanka ah xarakada al-shabaab si looga guuleysto. taliska Mareykanka ee Afrika oo howlgallada Washington ay ka fulinayso Soomaaliya maamula ayaa sidoo kale ka warbixiyay weerarkii Kunyo Barrow oo ay fuliyeen saraakiil Mareykan ah. ku dhawaad 50 ilaa 100 sarkaal oo Mareykan ah ayaa Soomaaliya u jooga inay talooyin ka siiyaan ciidamada dawladda weerarada ka dhanka ah al-shabaab. xarakada al-shabaab waa faraca saddexaad ee ugu weyn shabakada al-qaacida. xarakada al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weeraro ka dhacay Soomaaliya iyo gobolka Geeska Afrika. dawladda Soomaaliya ayaa ku howlan dhisida guddi madax bannaan oo la dagaalanka musuqmaasuqa kaasi oo baarlamaanka Soomaaliya ay hore ugu soo celiyeen wasaaradda cadaaladda. haddaba Soomaaliya ma u baahan tahay guddigaasi in loo sameeyo? xukuumadda Soomaaliya waxay 22 bishii Juun cod aqlabiyad leh ku meelmariyeen xeerka dhismaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa kaasi oo baarlamaanka Soomaaliya u soo gudbiyeen inkastoo ay dib u celiyeen golaha shacabka. xeerkan ayaa waxaa lagu bedelayaa sharcigii soo baxay Febraayo 1968 kaasi oo ahaa xafiiska baarista musuqmaasuqa. haddaba in la sameeyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ahmiyad intee le'eg ayuu leeyahay, sidoo kalena kaalin intee le'eg ayuu ka qaadan karaa in la dagaalamo musuqmaasuqa. waxaa arrintaasi ka hadlaya Bashiir Cabduqaadir oo ah aqoonyahan arrimaha siyaasadda ka faalooda. marka aad aniga ay igula fog tahay in maanta corruptionka xeerarkan la sameeyay iyo guddigan maanta la sameeyay la dagaal. laakiin guddigan iyo xeerarkan maadaama la sameeyay waxay ka mid tahay guri iyadoo la dhisay. guriga markii la dhiso haddaan guri la dhisin dhulka bannaan oo ahaanay ma jiraayo. yacni haddaanan xeerar la sameynin dowlad ma jirayso oo dhul bannaan oo kale oo ahaanaya. haddii hadda xeerarka la sameeyay waxay la mid tahay iyadoo guri la dhisay. guri haddii la dhisay aan la degin, guriga waa dhisan yahay wuxuu diyaar u yahay in la dego. mar la arko oo la helo dad degane
gurigaas wuu shaqeynayaa marka anaga hadda waxaa xeerarkan waxay noo sii taagayn tiirarkii dowladnimo laakiin dowladdii oo ku dhex shaqeyn lahayd iyo dadkii ku dhex shaqeyn lahayd maadaama uu hoggaan liito maadaama corruption maadaama tuugo maadaama qaabab xun oo ka dhashay 30 sano aan dowladda ahayn iyo 26 sano aan burbursaneen 57 sano oo xiriirta waxaan isleeyahay waxay tilaab u tahay koowaad heer samaynta dhisidda gurigii oo dowladnimadii Soomaalida kadib waxaa la helayaa hoggaan wanaagsan in la raadiyo la helo markaas hoggaankii wanaagsan uu shaqeyn karaa guddiga haddii la dhiso waxa uu awood u yeelanayaa in uu baari karo musuqmaasuq hay-adaha dowladda xafiisyada iyo hay-adaha gaarka ee gudaha iyadoo aan dacwad loo soo gudbin ama aan la soo dacweynin waxaana guddigan uu yahay mid si madax bannaan ku shaqeynaya sida ku xusan xeerkan oo aan weli baarlamaanka Soomaaliya aysan ogolaanin Maxamuud Cismaan Baaltaag waxa uu arkaa xeerkan mid loo baahnaa xilligan inuu yimaado balse ay adag tahay in la dhaqan geliyo runtii sharcigan waa sharci loo baahnaa in mar hore la keeno maxaa yeelay sida aan la wada soconno wadanku wuxuu ku jiraa xaalad runtii u kabasho ah musuqmaasuq baahsan oo dhan walba saameeyey oo ay dowladdu dhexda kaga jirtay muddo badan welina aan u malaynayo inuu baaqi sii yahay oo uusan dhammaan in sharcigani mar hore la keenana way ahayd laakiin xilliga hadda la keenay waxaan isleeyahay waa xilligii ugu habboonaa oo loo baahnaa sharcigan iyo sharci la mid ah inay dowladdu keento baarlamaankan uu baasgareeyo laakiin muhiimadda jirta sharcigan sharci la sameeyaa wax weyn ma aha laakiin waxaa muhiim ah sharcigu ma ku qotamaa oo ma ka mid yihiin arrinka loo qeexaya qaabka looga hortagi karo musuqmaasuqa jira ee dhabta ah mise waa un sharci magac u yeela oo runtii sharci baa jira leeyahay oo aan ka qabanayn marka muhiimaddu waxay tahay sharcigan qaabka uu uga hadlayo iyo sida uu wax xakameyn kara musuqmaasuqa jira waana sharci loo baahnaa oo waqtigeeda ku soo aaday runtii shacabka iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeedna aad bay u soo dhaweynayaan runtii guddiga la doonayo in la dhiso haddii xeerkan uu meel maro waxa uu ka koobnaan doonaa 9 xubnood kuwaasi oo muddo 6 maalmood ah lagu sameynayo waxaana ku xusan xeerkan in loo tartamayo xubinimada hase yeeshee waxaa jira shaki laga qabo in aysan ka marnaan doonin musuq dhismihiisa oo ay adag tahay in si cadaalad ah dadka musharaxiinta ah loo kala saaro sida mar kale uu sheegayo Bashiir Cabduqaadir laakiin xaaladan la joogo ani ilama aha guddigan la sameynayo sababtoo ah guddigan hadda qawaaniintiisa markaan akhriyay sida loo doorayo oo dimuqraatiga oo nidaamka ah oo la dhahayo mesela wasaaradda cadaaladda waxaa la siiyey awood in ay ayada soo kala xusho dadka tartamayo ma kula tahay wasaaradda cadaaladda inay cadaalad ku xulayso dadka soo tartamayo 60 biri gudahooda 200 qofood soo weydiisanaya 9 qofood laga rabaa 9 qofood oo shuruudda buuxiye oo nadiifka ah oo cadaalad ama laga dooraa maya waxa imaanaysa markii sharciga la gudbiyo in lees qabto lagu imaado 4.5 maxaa 9 looga dhigay 4.5 ku saleysan tahay 9 waxa looga dhigay guddiga 4.5 ku saleysan yahay si loo qaato 4 meel oo min 2 ah iyo hal oo nuski 5 ka ah taa calaamad ku tusaysa way mar la arko mushaakilkii dhashay oo ahay nidaamkan oo musuqmaasuqa oo 4.5 ku saleysan weli inuu ilaalinayo hoggaankii liitay marka wax kastoo la qora wax qiime ay sameynayaan male 9 qofood xubnood laga dhigayo waxay ku muujinay waxa looga dhigay 12 xubnood waxa looga dhigay 7 xubnood waxa looga dhigay in aan muujinaynin 4.5 waxa looga dhigay 4.5 waxaana definitely guddiyadii ka horeysay loo xulay guddigii hadda la gudbiyay qaab 4.5 marka waxaa imaanayo in la laalo xeerkan oo dhan guddiga musuqmaasuqa la abuuro guddiga intuu musuqmaasuq la dagaalami lahay waxaa sameysmay guddi musuqmaasuq ilaalinayo codsiga xukuumadda Soomaaliya oo ahaa in si degdeg ah uu gudbo xeerkan baarlamaanka Soomaaliya ma suuro gelin waxaana xukuumadda Soomaaliya ay xustay in baahi weyn loo qabo dhismaha guddigan marka loo eego marxaladda xilligan dalka uu ku jiro Abdullaah Maxamed Ibraahim Goobjoog Muqdisho kulan looga hadlaya sidii wada shaqeyn dhanka ammaanka ay u dhaxmari lahayd shacabka iyo laamaha ammaanka oo looga hadlayo sidii loo xoojin kara ammaanka ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho
kulanka ayaa mas-uuliyiinta kasoo qayb gala waxa ay sheegeen haddii shacabka ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka in wax badan ay isbedeli karaan. kulankan oo uu soo qaban qaabiyay maamulka gobolka Banaadir fududeeyana uu ka yahay kan degmada Wadajir waxa muhiimadiisu ay tahay in shacabka iyo maamulka degmada ay ka wada shaqeeyaan sidii amniga degmada Wadajir loo xaqiijin lahaa. gudoomiyaha dhinaca arrimaha haweenka ee gobolka Banaadir Jawaahir Barqab oo kulankan ka hadashay waxay sheegtay in uusan amni sugmi karin iyadoo shacabku ay aamusan yihiin waxayna ku boorisay haweenka kulankan ka qayb galay iyo waliba rag kale ee joogay in ay maamulka la shaqeeyaan oo wixii xog ah ay soo gudbiyaan. waxa loo baahan yahay dadkan way la shaqeynayaan dawladooda way rabaan Soomaa hadii ay rabaan qofkii shalay aad soo qabatay hadii lagu yiraahdo waraaw Jawaahir Barqabaye qofkan adaa soo tilmaamay Brisal Liga imo haye waxa ku soo qabatay sheeg markii la dhaho suurtagal ma noqonayso qof wax sheegayna ma jiro dadka marka magaalada waxay ku leeyihiin aniga saaqaasay gelin iga wareeji bahasha xagga iga leex ya aniga iga wareeji bahasha marka waxa sameynaayo saaqaasay gelinin sababtoo waa lagu soo wacaya boqol waxyaabood oo anigu aan ogahay oo aan media rabin aan kaga hadlo oo cadaymo aan u hayno ayaan aragnay. gudoomiyaha degmada Wadajir oo isna la hadlay warbaahinta wuxuu sheegay in maamulkiisu uu diyaar u yahay in uu ilaaliyo nabadgelyada qof kasta oo muwaadin ah oo ku nool degmada Wadajir laakiin waxa uu istusiyay sida ay muhiim u tahay in wada shaqeyn ay ka helaan shacabka degmada. waxaana laga rabaa haddaan anagu isgarabsanin oo anagu aan iswacyi gelin oo anaga aanan hal mid noqon kama guuleysan karno. amni sidiisaba waxa suga shacabka iyagoo ka yimaada iyaga golaha amniga u sheega iyaga taliya ku xigeenka booliska oo nala jooga wargeliya haddaynan anagu dhacda aanan waxba ka baran oo aanan anagu iswargelin mar kasta waxay ahaanaysaa un dhibaato dhalinyaro inay ku dhimato dad waayeel ku dhamaadaan bulshada in badan oo kamid ah degmada u timid in hawlo loo qabtaa meesha ku dhintay oo aan waxba galabsan. marka arintaasi barnaamijkan samawade oo maanta ay maaragtay muxuu ahaa Somali National Television ee noo qabato waa uga mahad celinaynaa. waxaan rabnaa dadka shacabka ah iyo maamulkeena inaan wada wadaagno xogtaas dhibaatada nagu haysa sida la idin sheegay muxuu ahaa booliska la xiriiri kartaan annaga maamulkeena la soo xiriiri kartaan gudoomiye waaxyada la xiriiri karaa waxaan diyaar u nahay saacad walba wax walba oo bulshada dhibaya inaan sida dhow idin la shaqeyno sida hadda laga dhawaajiyay oo dadka qaarkiis ay sheegeenna qorshaha waa nagu jirta inaan xaafad dadka u soo booqano 10 tiriya aan guri u soo booqano sababtoo dad muslimiin ah nahay waxaan nahay dad walaalo ah si aan u ogaano dadkeena jilicsan dadkeena dhibaataysan annaga isu ah dad ahal ah annaga isu ah walaal reer Wadajir waxay ahaayeen dad abaabulan sida hore loogu sheegay. Munasar Maxamed xildhibaan ka tirsan maamulka Galmudug ayaa wuxuu sheegay in xaalad macluul ah ay ka dhici karto deegaanada fog ee miyiga gobolada dhexe. xildhibaanka wuxuu sheegay in gobaha miyiga ay dhibaatooyin dhanka nolosha ah ay ka jirto. mudanayaal ka tirsan wakiilada Galmudug ayaa sheegay in qatar nololeed ay wajahayaan kumanaan qoys oo ku nool deegaano ka tirsan Mudug iyo Galgaduud oo ay weli ka jiraan abaaro daran oo saameyn laxaad leh ku yeeshay dadka iyo duunyada. xildhibaanada qaarkood oo kulma ayaa sheegay in saameynta abaartu ay qarka u saaran tahay in isku bedesho macluul ay suurtagal tahay in dad badan ay u geeriyoodaan haddii aan si degdeg ah wax looga qaban. Mahad Cilmi Cali oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka Galmudug ee ka hadlay arrimaha abaaraha ayaa u sheegay goobjoog in dadka dhibaataysan aysan helin kaalmada ay u baahnaayeen isagoo baaq u diray guddiga qaran ee gurmadka abaaraha madaxda sare dowladda federaalka iyo hay'adaha samafalka. dowladuna ilaa hadda arrinkaas aysan door muuqda iska saarin waxaan rabaa marka inaan baaq u joodino runtii deeqaha la hayo waxay wax galaan inta dadku nool yihiin ama ay mudan tahay in lala gaaro maxay ahayd gacan la siiyo laakiin haddii xilligoodii ama munaasabadoodii kasoo daahaan wax badan oo micno ama sameynayaan dadkuna maanta aad bay ugu baahan yihiin inay deeqa helaan gaar ahaan deegaanada Galmudug in la yiraahdo dadka Soomaaliyeed waxay caan ku ahaayeen in gobol iyo degmo iyo deegaan isugu gurmadaan markii arrimahan kale ay dhacaan arrimaha noocaas marka in la yiraahdo isteediya wax loo qaybinaya kayd bay ku jiraan waqtigii go'aan laga gaarana isteediyada wax sima la sii doonaa uma baahnaan isleeyahay waxay u baahan tahay
sidii horeba dadka Soomaaliyeed ay ugu caanbaxeen ama caadada ugu ahayd in dadka reer galmudug maanta dhibaato gaar ah haysata oo gobolada kale la qabin in gacan dheeraada iyo gargaar degdeg ah iyo isku day badan wixii laga fududeyn kara haday aad dhinaca cunto siinta iyo nutritionka nafaqooyinka waxyaalaha ah iyo haday ahaan lahayd biyo haday ahaan lahayd caafimaadka xaqiisa oo runtii iyadana laga yaabo haday arrimahaasi sii socdaan inay dhinaca caafimaadkana saameyn badan ku yeeshaan sidii inay shuban biyood iyo cudurro noocaas dilaacaan. Garaad Yuusuf Maxamuud oo isna ka mid ah xubnaha wakiilada Galmudug ayaa sheegay in dhibaatada waxyeelada abaarta ay ka sii dartay lacagta shilinka Soomaaliga oo muddo toddobaadyo aan ka shaqayn deegaankan. Marka runtii arrintaasi saameyn weyn ayay waxay ku yeelatay nolosha dadkii hooseeyay noloshooda hooseysay ee ganacsiyada yaryarka lahaa. Marka arrintaas laftirkeeda waxay u baahan tahay in si maxay ahayd strategically ah dhanka dhaqaalaha wax looga qabtay u baahan tahay oo runtii dawladda dhexe ee Soomaaliyeedna arrintaas ayada ay jawaab ka bixiso. Annagu runtii waxaanu nahay dawlad goboleed ayaan nahay marka dawlad goboleedkuna sida la ogsoon yahay awood badan oo arrimahaas financial crisis ama maxay ahayd dhibaatada dhaqaalaha sarifka wax badan kama qaban karo. Waxay u baahan tahay central bank ama bangiga dhexe dawladda oo runtii arrintaas wax ka qabta. Daahir Faarax Axmed, Goobjoog, Cadaado. Golihii wasiirada maamulka Galmudug oo dhawaan kalsoonida ay kala laabteen baarlamaanka Puntland ayaa waxa ay soo bandhigeen mid kasta waxqabadkiisa waxayna sheegeen golahaasi wasiirada Puntland ee baarlamaanka ay kala laabteen kalsoonida inaana shaqo la'aan aan lagu eedeyn karin oo waxyaabo badan ay qabteen intii xilka ay hayeen. golaha wasiirada maamulka Puntland ee dhawaan kalsoonidii ay kala noqdeen baarlamaanku ayaa waxay soo bandhigeen waxqabadka oo wasiir kastaba qabtay muddadii uu xilka hayay. wasiiradan oo ka sheekeeyay waxyaabihii u qabsamay muddadii iyo waxyaabihii qabyada ka ahaa balse qorshaha ugu jirta inay qabtaan ayaa ku doodaya in aan lagu dhaliili karin waxqabad la'aan. wasiirada oo ka hadlay fagaara ay iskugu yimaadeen dad dhageystayaal ka ahaa iyo siyaasiyiin kala duwan oo reer Puntland ayaa ku qabtay xaflad magaalada Garowe xarunta maamulka Puntland. waxayna wasiiradu sheegayaan in ay u baahnayeen waxyaabaha u qabsamay in lagu amaano isla markaasina ay u baahnayeen fursad in la siiyo si ay u dhameystiraan waxyaabaha qabyada ka ahaa. gudaha markaan joognayna waan ognahay oo geedgeed baa maarta muuqanaya. waxaanu qorsheynay inaanu dhirayno magaalooyinka sidoo kale ma aha kaliya magaalooyinka laakiin dhul daaqsimeedkii ugu horreeyey ee aan tijaab ahaan hadda ku dhiraynay wuxuu ku yaalaa degmada Dangorayo tuulada Libaaxo waana socdaa. waxaan rabnaa inaan tijaabino haddii lagu guulaystana marka awoodno haddii rabbayno in dhul badan oo baaba'ay dhir dib loogu beero. magaalooyinka waaweyn waxaa 8,000 oo geed lagu beeray wadooyinka iskuulada iyo xarumaha dawladda ee magaalooyinka Garowe ay Boosaaso Kaalkacyo iyo Qarni. waxaa markhaati ka tihiin Garowe inta geed 2,000 oo geed oo banaanka u baxdaan hadda arki doontaan in lagu beero insha Allah noqon doona bilicdi magaalada tan. geedka markii la helaan nolol baa la helayaa iyo qurux iyo bilic. waxaa sidoo kale asbuuca dhiraynta sanad kasta la qabanayay 4 sano u dambeysay la qaybiyay oo dadweynaha lacag la'aan lagu siiyay 40,896 geed oo aanu siinay meelo kala gedisan. dadweynaha aanu siinay qaarkoodna aanu siinay meelaha dawladdu ay leedahay meelaha iskuulada publica iyo goobo kale. markii aan suurta gelinay xafiisyadii oo qalabayntii iyo hoolalkii iyo shirarkii iyo goobtii lagu qaban lahaa xaruntii Boosaaso tarna markaan intaas sameynay baan waxaan ku xijinay in la helo dadkii shaqayn lahaa waxa ka horeeya shuruucdii iyo shaqo qeexid. waxa muhiim ah shaqada iyo shaqaalaha waxa horeeya shaqada. dadka waxay ku qaban lahaayeen waxa laga hormariyaa dadkii wax ku qaban lahaa laga hormariyaa waxay ku qaban lahaayeen. marka waxaan qeexnay qaanuun iyo shaqo qeexid baan sameynay iyo wasaaradda job distribution-keedii sidoo kale waxaan sameynay strategic plan kaas waxa looga baahnaanayaa marka muxuu u baahan yahay in la qabto activity-gan dad noocay u baahan yahay dad noocaas. marka taasaan waxaan sameynay shaqaalihii noo joogay inaan isku shaandhayn iyo training sameyno si aan u ogaano capacity wasaaraddu xagga shaqaalaha ay u leeyihiin. 18 bishan
julaay ayaa baarlamaanka puntland waxa uu kalsoonidii kala noqday golaha wasiirada taasi uu soo dhaweeyay madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo isagoo ka sheegay arintani inay tahay arin dastuuri oo baarlamaanka uu xaq u leeyahay waxaana garowga ka socda dadaalo siyaasadeed oo la rabo in lagu soo dhiso xukuumad cusub. baarlamaanka dalka Mareykanka ayaa ansixiyay sharci cunaqabateyn wada saaraya wadamada Ruushka, Kuuriyada Waqooyi iyo sidoo kale Iiraan. baarlamaanka Mareykanka ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyay sharci cunaqabateyn cusub saaraya Kuuriyada Waqooyi, Iiraan iyo Ruushka, waxayna madaxweyne Trump uga digeen inuu qaato cunaqabateyn isaga aan ogolaansho ka haysan Koongareeska Mareykanka. sharciga cusub ayaa maraya golaha odayaasha Mareykanka inta aan la geyn xafiiska madaxweynaha. qorshahan ayaa waxaa ogolaaday 419 kuwaasi oo ka kooban 435 waxaana diiday 3 jamhuuriyiinta ah oo kaliya. qorshaha cusub ayaa la filayaa inuu helo taageero ballaaran dhanka golaha odayaasha Mareykanka si looga hortago in madaxweynaha Mareykanka isticmaalo codka diidmada qayxan. sharcigani ka kooban 184 bog ayaa jawaab u ah howlaha militariga ay Moscow ka wado Ukraine iyo Suuriya, waxaana sharcigani uu shuruud kaga dhigayaa in madaxweyne Trump uu labada aqal ee Mareykanka u soo gudbiyo warbixin uu ku sharaxayo sababaha uu joojiyay fulinta ama ilaalinta cunaqabateynta la saaray Ruushka. sharcigani ayaa diiday in doomaha ay leeyihiin Kuuriyada Waqooyi iyo dowladaha diiday go'aanka golaha ammaanka ee ahaa inaan la marin biyaha Mareykanka. wadanka Iiraan ayaa sidoo kale qorshahan lagu cunaqabateyn doonaa kuwa oo ku lugta leh barnaamijka gantaalada balaastikada Iiraan, waxaana qorshaha ku jira qayb lagu cunaqabateynayo ciidamada kacaanka Iiraan iyo digniin u ah in aysan hubka iibsan karin. xubin ka mid ah golaha odayaasha Mareykanka ayaa sheegay in Trump aan ansixin doonin inta aysan Koongareeska fulin fasaxooda bisha soo socota. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan wuxuu sheegay in aanan cidna kala tashan doonin oo ay xaq u leeyihiin in dowladiisa ay hub iibsan karaan. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in wadankiisa uu xaq u leeyahay inuu raadiyo wadada ugu wanaagsan marka laga hadlayo ammaanka wadanka. arintaana ay jawaab u tahay hadallo ka soo baxay Mareykanka kaasi oo lagu diiday heshiisyo dhanka hubka ah ay kala saxiixdeen Moscow iyo Ankara. madaxweynaha Turkiga ayaa adkeeyay dhawaanshihiisa saxiixa difaaceed oo ay Moscow kaga iibsanayso lidka diyaaradaha, taasi oo Mareykanka ku sheegay in heshiiska Ankara iyo Moscow uu sabab u noqon doono inuu xumaado xiriirka Mareykanka iyo Turkiga. Erdogan ayaa tilmaamay in arinku markuu uu la xiriiro ammaanka wadan ay tahay inuu maro wado waliba oo ku xaqiijin kara. marka uu hadal u jeedinayo xubnaha xisbiga talada haya ee baarlamaanka ayuu sheegay inay qaateen dhammaan howlihii loo baahnaa, muhiimna ay tahay. ilaa hadda ma cadda qaabka saxiixa heshiisyada uu u sheegay madaxweynaha ee lagu iibsanayo hubka difaaca horumarsan, xilli uu Isniintii sheegay in baaritaanada arrimaha la xiriira ay intooda badan soo dhamaadeen. mar haddii ay Moscow gantaalada horumarsan ka iibsato Turkiga oo xubin ka ah isbahaysiga NATO, ayay keeni doontaa in Mareykanka ka xanaaqo arinta una xumaado xiriirka labada dal. xilli sii horeysa ayuu sheegay madaxa kooxda Rosetic ee sameeya hubka in waxyaabaha farsamada la xiriira xal laga gaaray, isagoo intaa ku daray inay harsan tahay oo kaliya dhinaca maamulka, taana ay go'aan ka gaari doonaan labada dowladood sidii loo dhameyn lahaa heshiiskooda la xiriira kala iibsiga hubka. guud ahaan warka oo aad ka daawanayseen Goobjoog TV waa naga inta.